maxamed xasan oo axmed dheere ku magac dheer ayaa waxa uu ka mid ahaan jiray duuliyayaashii ciidamadii cirka ee Soomaaliya gaar ahaan waqtigii dagaaladii 88 waqooyiga Soomaaliya. halkaas ayaa isaga diyaaradiisa loo diray si uu magaalada Hargeysa u duqeeyo, hase ahaatee intuu dhaafay ayuu diyaaradii wuxuu la galay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. bari dhaweed ayuu Hargeysa tagay duuliye Axmed, halkaasoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay. intii uu Hargeysa joogay ayaa waxaa la kulmay oo wareystay wariyaha BBC-da Axmed Saciid Cigo oo weydiiyay bal inuu uga warramo sidii wax u dhacay iyo go'aankii barigaasi u qaatay. waxay ahayd markii ay soo galeen xoogagii SNM-ta oo xilligaas heshiis oo jiray dhex maray Ethiopia iyo Soomaaliya, waddanka Djibouti uu ku dhex maray in markaasi la joojiyo hadba jabhadaynta ama yani iska soo horjeedka. markaana jabhadii SNM-ta waxay soo gashay Hargeysa, dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday. anagu waxaan ciidanka cirka qaybteena ahayd, aniga waxaan joogay saldhigga Balidoogle. waxa yani halka iga soo horeeyay diyaarado oo 19 ah iyo diyaarado kale Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig Balidoogle iyo Baydhabo. waxa yani dagaalku muddo socday inta aanan imaan halkan ka hor. waxaana loo soo diray anaga oo MiG 17 ah xoojin markaas aan xoojinaynay ciidamadii cirka halkaas joogay iyo kuwii dhulkaba. marka waxaan ku soo beernay waqti dambe oo markaas aniga aan joogay muddo maalin barkeed ah ama maalin iyo laba habeen baan iraahdo. marka dagaalkaasi wuxuu arinta kala socday xagga intaan joogaba waan la socday sida wax u dhacayaan. wuxuuna ahaa yani dagaal nasiib darro ah oo aad iyo aad yani ummadda yani markaas walaalaha ah ee Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay. qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas suuragalka ay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan oo markaas dadkii ay daafici lahaayeen ay markaas ay laftigoodii dagaal ku qaadaan. waxayna yani aad iyo aad qaarkood uga xumaayeen, qaar kalena hadee way markaas sababa ay markaas sheegayeen. marka xilligaasi aad ku soo biirteen diyaaradaha MiG 17ka mid kamid ah adigu aad waday markaasi waqtigee bay ahayd? waxaynu ogeyn in 1988 bishii May ay dhamaadkeedii halkan dagaaladu ay ka qarxeen. waxaan ku soo biirnay 1988 bishii July, aan filayo 10kii July inay ahayd. markaasna waxaan ka soo kicitanay magaalada Muqdisho anagoo markaas gaalkacyo dalka qaadanay, kadibna waxaan nimid Hargeysa. maalin ayaan joogay, marka habeenka waan hoyday, maalintii baan joognay. maalintaas waxaa jiray adiga diyaar garow oo markaas loo diyaar garoobayo bambooyinkii iyo qalabkii kale. waxaa maalintaas iyadana sidoo kale aniga diyaaradeeda aan fariisiye oo markaas aheeday cilado iyo inay jiraan. markaana maalintii dambe waxaa loo diyaar garoobay duqayntii iyo dagaalkii, waana maalintaas aan qiyaasayo inay ahayd 13kii amba 12kii aan iraahdee in aan markaas ka tegay bishii July 88kii bishii July 88kii marka imisa diyaaradood baa hadeen MiG 17 ku soo biiray diyaaradihii hore ee MiG 19 iyo kuwii Hunter-ka ee iyagana Baydhabo laga keenay halkan joogay markaas aad Hargeysa. qiyaastii waxaa halka sii joogay ilaa isku dar adiga maxay dhahay 10 diyaaradood oo Hunter iyo iskugu jiray iyo 19. anaga oo 17 oo laba ahna waa ku soo biirnay xilligaas iyo taariikhdaas soo sheegay. markaasna hadee waxa weeye anaga waxaa markaas hawsheenu aheeday kulli magaalada gudaheeda sida loo soo sheegay, markaasina magaalada duqeyna ka geysano. taasoo markaasba aniga Axmed ahaan aan go'aansaday inaanan yani magaalada Hargeysa bambooyin waxaan ku ridin, iyadoo markaas ay ila muuqatay qof kastoo meer leh Soomaaliya sida ay ula muuqato oo ah in dalkaygii ama yani shacabkaygii aan markaas bambooyin ku rido. markaas sida darteedna waan ka tagay oo waxaan u baxay xagga iyo dalka Djibouti. halkaasna waxa weeye si markaas wanaagsan ayaan kala kulmay runtii. oo marka diyaaradaadii maalintii 13kii bishii July 88kii markii aad duushay lagu amray adigoo ka kacay diyaaradda garoonka baad ka kacday Soomaaliya Hargeysa iyo magaalada markaad duqeynaysay ayaa dabeetana Djibouti aad diyaaradii u duulisay.
garoonka hargeysa ayaan ka kacnay annagoo 2 diyaaradood markaas waxda waxaan markaasna ahaa hadafkeena ama yani mishinkana la siiyay inaan duqeyno magaalada qaybo kamid ah markaana waan kacnay labadeena marka waxaan toos u qaatay jihadii Djibouti oo marka horeba ku tala galay waxaan sii riday bambooyinkii oo aan qarxaynin xagga magaalada dibadeeda markaana waxaan sii watay safarkii xagga Djibouti oo markaas aan ku gaaray xeebta Djibouti anoo markaas ka gudbay magaalada Djibouti cimilada oo markaas xumeed soo noqodkiina shidaalkii ayaa iga dhamaaday soo gabaabsi ayaan waxaan ku degay degid oo markaas force landing la yiraahdo waxa way maaragtay degid aan markaa hadba meel loogu tala galanayn وانا إلهي إنه سبحانه وتعالى ويقول بالبادية وانا يعني كبحي حل قاسنا وحي هذي حل مارتي عادي هذا كلل مركانا وحن هلي كلو ميستو هالكا جوكتي وحن قاري مركا مقالة جيبوتي إيو منطقة دولة دي جيبوتي وهي كان سوى الأكسن يسو دوية أو مركانا يقوريجي هي أدى يونيت النشنكا وهي كان مركز دلك هذا عن جوجو يقاضي ودلك هاوية شوكتا دلك ما شوكتا تكون ماشي هذا هذا وحن كلولا هاي ودن كاللوكسمبورغ oo wadan aad u yar oo kamid ah Yurub oo wadan yani runtii wadan muxaafid ah waana ku nabad qabnaa aniga carruurteeduna halkaas ayaan deganahay Ahmed markaa sidee baad u arkaysay markaasi amarka lagu siiyay diiday waa amar military miyana hii inaad fuliso markaasi xaq ku kalif inaad diido amarkii madaxda sare markaasi dawladda Soomaaliya ay ku amartay inaad fuliso hadee waxa way amarku waxa marka hore ka horeeya amarka inuu waafaqsan yahay waxaan u dhaartay waxaan aniga u dhaartay oo aan ciidamada u galay oo inaan dalka daafaco oo markaas aan shacabka iyo dalka aan daafaco laakiin ayaga inaan ku sii jeesto oo markaas ayaga aan baabi'iyo dhaartaydu ma ahayn marka amarku amar sida u qaldan oo ahaa sida darteed ayaanan mataqaanaa uga baxay oo aanan u fulin sidee aad u aragtaa marka magaaladii Hargeysa dareenkaaga waa sidee sida lagu soo dhaweeyay magaalada waxaan u arkaa yani nolol iyo nabad wanaagsan aan ka arkaa iyo mataqaanaa waxaan marna aanan filaynin waqtiga aan ka tegay oo burburkii iyo waqtiga hadda la joogo oo ah yani waqti yani nabad iyo wanaag iyo nolol aan ka arko dadka yani marka kale su'aasha kale dadka si ay soo dhaweeyeen waa si aad iyo aad u sarreysa iyo mataqaanaa soo dhaweyn diiran oo walaaltinimo iyo mataqaanaa jacayl iyo waxaan la sifay karin amarnaba waana ku mahadsan yihiin walaalay